السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو channel كيغا Maya Beauty. حتى تكون عصب تاي channel كيغا make sure إن like قريسيد comment قريسيد iyo and I hope إنك تكيشد فيديو جن أتصفى عنه برتمانت Makeuplook أن سميي and إن شاء الله هيجي لوينا إن يجي follow قريسين social media accounts كيغا TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook وحكا سوان كوتشلا مركا إن شاء الله يجي ولا follow قري هذا اليوتيوب كما قيا حاجة مركا ستشوجا مركا هذا السؤال هيسين ما أنت Makeuplook عن سميي أم any سؤال about makeup أم about makeup and يسوي دي إن شاء الله وانسكو دي دونا إن أنا جوابه موسي وحن كوتشوا وحويين Snapchat يقعد قرا and Instagram sometimes we are difficult لكن Snapchat هرباني وصل جوابي كرا because Snapchat كي هو open Snapchat كي هو فري هاي قف كسر مركا سؤال يودين كرا مركا إن شاء الله يجي لو بن لايكا فيديو جن like قرا يو I hope إنك enjoy قريسيد فيديو جن عاد سفة عنه بريتنا ميك اب كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay and وجهي سو أركسين بقى وحويان really dry only because makeup بان مرسنا and ساكاي مكنا واهبين إمي كلر بان اسكم مسحي and سان سميو يوتيوب فيديو جن مانتا and وحن سنين دونا فاسلين هيدا أيام هرت فورة هيدا مرسنا and then مانتا actually then وحن تسدونا إيرو the skincare and وحن مرصدو in terms of skincare مركا عن اسكو ديارنيا makeup كا so وحن مرصدا وحوين watermelon PHA and BHA whole tight toner وحوين toner لكن not any toner toner أنا هرتا وجهيغا you know I know I suffer with dry skin إي eczema أيان هايستا مركا add بيعوي product gun I absolutely love it وحويان product add وفعان وحن سمنيا a lot of makeup like a lot of powder أيام مرسنيا مركا وجهن وان hydrated كدقنو and وحن كحكسينيا fresh deep hydration هرتا أني تصبل product كان وهكن fresh deep hydration oil infused serum مركا serum كان أيان استعماليا واتفق بان استعماليا product كان again good for hydration even primer كنا and primer like وحنا نقولنا and dry skin care وفعنين لكن again مركز وان دها any product وان استعمالي كنا وحين كحرنتهم سدان وهجاكنا سان prep كرنا وجهنا ديارنا وجهنا prep وديارنا في Somali مركا ومهم like وجهي عاد وحنا مرسن أبهدات only cream like كوريسيد is not good like وجهي هادو طلع then you wonder وحي إسلا هاي محاد like why is my makeup not looking nice okay waxaan sameeyaa in yar baan ku yara joogayaa bal skincare ka soo si fiican jirka u galo and then wanagu soo noqon doonaa waa kaas wajigayga it's hydrated I feel like markii hore imika difference weyn baan arkayaa my skin is hydrated laakiin we still waxaan u baahanahay inaan more hydration siino and only because skin kayga ayaa u baahan waxaad dhici karta adiga skin kaaga inuu u baahnayn marka just skip you know step yaasha iska skip garee amba wala isticmaal hadaad dry skin istid so waxaan isticmaalaya waxa weeyaan waxaan isticmaalayaa kana ku horeysinaya horta because creamkan waxa weeyaan creamkan every single day marsado part of my skincare routine weeyaan waa kaas le Pore baladaha waa Francis laakiin xagga Ingiriiskan ka iibsadaa kan san yiriba aniga skincare kayga way part of my skincare routine and I love it and imika waxaan marsananaa Walida skin food ayaan marsananaa saasuu eegyahay only in yar baan productkan marsanaya maanta ma doonaa isku yara badiyo so arkaysiinba just a little bit then again waxaan yar sugayaa a few minutes daqiiqado and then wanagu soo noqon doonaa waxaan doonayaa si fiican inuu skinka u galo hydration kan badan aan gelin aba creamada badan inuu dee wuxuu sameyn lahaa inuu sameeyo marka wanagu soo noqon doonaa
imika waxaan isticmaalayaa Fenty Skin Flash Up Eye Cream ayaan doonayaa inda hoostiisa just you know xaggan ayaan marinaa as eye cream was so important marka eye cream kaasaan inda hoostiisa imika marinaa. And then waxaan marsananaa Charlotte Tilbury lip collagen ayaan fururahayga marinayaa. Imika waxaan isticmaalayaa primerka aan maanta isticmaalayo waxa weeyaan Milk Hydro Grip. So Milk Hydro Grip baan maanta isticmaalayaa sidaasuu eegyahay. Milk Hydro Grip and again product waxaan u isticmaalaa markaan you know makeup badan markaan marsanayo especially powder badan wajiga ayuu si fiican ugu dagaa makeupku marka laba pump baan sidaa marinaya wajigayga. So arkisiinba waa very sticky like waxa weeyaan primer aad u stickiya marka I like this primer waa very good primer xaggan especially xaggan ayaan ka buuxiyaa. Okay, characterka ayaan imika marsanaya. Characterka waxa weeyaan character orange by Fenty Beauty. I call it a character maaha waxa la dhahaa bright fix eye brightener laakiin inagu waxaan u isticmaalanaa as a character and dhinacyada you know taashashka aan ku leeyahay igeera madow xaggan finanka taashashka ayaan marinayaa soo arkisiinba. And then one blend garanayaa. Okay, waa kaas waa all blended and imika waxaan dul marinayaa concealerka. So concealerka aan maanta isticmaalay waxa weeyaan Too Faced Boldness Way concealer and maalmahan everyday baan kan marsadaa to be honest. Labadan concealer ayaa favoritekayga ah and warm sand ayaan markaa dul marinayaa meelihii oo dhan aan orange ka mariyay ayaan imika kan dul marinayaa. And one blend grey, I look crazy, okay? But this is what works for me. I like this step and makeup ka especially you know markaan orange concealer ka marsado markaan orange brightener ka marsado because hyperpigmentation baan qarinayaa haddaan foundation toos u mariyo it doesn't work okay marka cause hoosta laga arkaa like you can see it. So this I love this basically waan ka helaa marka waxaan sameynayaa macao iyo marsanayaa waxa weeyaan NARS soft matte complete foundation in Macau. Absolutely love this, okay? aad baan u jecel yahay foundationkan and marka waxaan sameynayaa waan ugu soo noqon doonaa foundationka ayaan doonayaa inaan blend gareeyo si fiican u blend gareeyo marka waan ugu soo noqon doonaa. Okay, waa kaas wajigii oo dhan waa blended time badan baan ku qaatay inaan wajigayga blend makeupka inaan blend gareeyo foundationka inaan blend gareeyo marka imika waxaan sameynayaa concealerkii aan marsanay earlier ayaan haddana marsananaa laakiin cookina waa marsananaa. So waxa weeyaan Too Faced Boldness Way concealer in warm sand iyo cookina waa kan markay la daawado insha Allah.
Okay, waa kaas concealerkii waan blend gareeyay. Imika waxaan sameynayaa contourkeeni. So contourka aan maanta isticmaalay waxa weeyaan Huda Beauty and Tantour contour and bronzing cream. Love this product. Aad iyo aad baan u jecel yahay. So kan ayaan ku jareynaa. So brushka aan isticmaalayo waxa weeyaan Morphe M459 brush ayaan marka isticmaalayaa. Anaan ku jarayaa kala daawada. Okay, waa kaas. Waxaan sameynayaa waan blend garanayaa. Waxaan isticmaalayaa for blending makeup. Waxaan isticmaalayaa makeup by Ariel and collaboration with Morphe. Kan waxaa la dhahaa A58. Kan ayaan markaa ku blend garanayaa. ilaa uu blended ahaado oo waxna la arkin oo makeup ku blend gareysmo. Marka motion kan baan isticmaalayaa soo arkisiinba up and down. Actually waxa weeye saas ayaan doonayaa inuu noqdo. So up and down oo motion kaasa. So waa kaas. waxaan sameyn doonaa nagu soo noqon doonaa si fiican ayaan doonay inaan u blend gareeyo time badan inaan qaato aan xijaabkana iska saar si fiican inaan blend gareeyaan doonay markaa nagu soo noqon doonaa. Waan blend gareeyay oo blended. Imika waxaan isticmaalayaa powder. So powder baan indhaha hoostiisa. As you guys know, imika waad garanaysiin baan u maleynayaa. Waxaan jecel yahay light powder and so Fenty Beauty Pro Filt'r ayaa la dhahaa powder. Fenty Beauty Pro Filt'r and banana ayaan jecel yahay indhaha hoostiisa mariyo. And then waxaan sameyn doonaa powder kan. So MERCIER powder ayaan afka marinayaa. So waa kaas. Kaas ayaan doonayaa inaan waa translucent powder marka xagaas oo dan ayaan mariyaa marka la daawado insha Allah. And then waxaan sameyn doonaa ku yara joogi doonaa. And then waan igu soo noqon doonaa eyebrowska and eyelasheska wixii oo dhan waan soo xirinayaa. And then waan igu soo noqon doonaa. Laakiin imika la daawada waxaan soo qaadanayaa Pro Filt'r-kii powderka ahaa. And then maanta waxaan isticmaalayaa brush. So Morphe E48 brush weeyaan. E48 brush. And then in yarum waan soo qaadanayaa. saasaan u tabgaranayaa soo arkisiinba. And then saas ayaan u tuujinaa soo arkisiinba. Okay, and waa kaas eyelasheski eyeshadow aan marsaday waxa weeyaan Huda Beauty kan maaha mise waa kan I can't remember. I think yes kan aan marsaday waxa weeyaan chocolate brown by Huda Beauty saasuu eegyahay. And then brown kan xaggan ayaan indhaha mariyay. Waxaan doonayaa indhaha hoostiisa inaan xaggan waterline-kaygana mariyo. So waxaan soo qaadanayaa
and brownka this palette ayaan doonaya brownkan ka yara khafiifsan inaan isticmaalo marka ila daawado insha Allah waxaan doonayaa inaan brush kan soo qaadanayaa anigoo ku blend gareyn doonaa and waa kaas waan sameeyey waan ku yara blend gareynaa siduu harsh u noqon so blending waan yara blend gareynayaa siduu brownku harsh u ahayn so qurux badnaada markaa and imika waxaan sameynayaa waxaan soo qaadanayaa Charlotte Tilbury flawless waxaa la dhahaa airbrush flawless finish powder marka waxaan soo qaadanaya actually big brush and brush weyn by Morphe again waxa weeye makeup by Ariel collaborations as u eegyahay and then waan ku wipe gareynaa so imika waxaan sameynayaa waan bronze garanaya wejiga so bronzerka aan isticmaalayo maanta waxa weeyaan Morphe Glamabronze in Megastar so saasuu eegyahay ana wejigaan bronze garanaya imika okay so imika waxaan isticmaalinaa blushka aan marsanana waxa weeyaan Fenty Beauty Cream Blush although waxaan doonayaa NARS inaan marsado powder blush but I like this one baan u jecel yahay kan marka yeah I'm just gonna use this one so okay waxaan imika sameynayaa wejigaan spray garanayaa because I feel like waan u baahanahay spray so waxaan isticmaalanaa Urban Decay and waxaa la dhahaa Urban Decay makeup setting spray I think waa all nighter makeup setting spray waan ugu soo noqon doonaa furuuraha ayaan soo clean gareynayaa in yarna inuu yar qalalo ayaan u baahanahay sprayga and then highlighterkeena ayaan marsanaynaa okay waa kaa waan igu soo noqday highlighterkan imika isticmaalayaa so waa perfect because si fiican uu qaleel muu noqon marka popping buu noqonayaa highlighterku si fiican buu ugu degayaa marka just before markaa spray gareysid wejiga and just before uu dry wejigu noqon ayaad highlighterka marsanaysaa sidoo si fiican u qabto haddaad methodka isticmaashid waa very nice very beautiful buu kugu noqonayaa in highlighterkaaga in badan ma isticmaalaysid wuxuu noqonayaa highlighter iyo subtle oo qurux badan marka make sure markaad wejiga spray gareysid inaad yar sugtid in yar inuu yar qaleel noqdo wejigu and then straight after highlighterkaaga marso aad doonaysid marka waan ku blend gareynayaa highlighterka make sure markasta inaad blend gareysid highlighterka waayo haddii kale wuxuu noqonayaa how do I say too much and mar isku badiyana 1 amba 2 times mar amba 2 jeer baad saa u marinaysaa and then waad blend gareynaysaa highlighterka badan I don't know aniga I don't like it ma qurux badno and especially markii dadku like xaggan oo dan highlighter mariyaan ma qurux badno meel kasta makeupkiisa inuu yaalo ayaa fiican so waa arkaysiin contourkii bronzerkii concealerkii foundationkii waa kaas so imika blendingii umaan sameynaynaa
blend gareyna highlighterkii hada doonaysid inta ku haday sanka ayaa saa u dul marin kartaa anigu that's what I usually do and waka I don't know arkaysiin but highlighterku waa popping okay imika waxaan waxaan sameyn doonaa stepkii fluuraha so linerka aan maanta marsanayo lip linerka aan marsanayo waxa weeyaan Morphe Trendsetter mise waxaan marsadaa Morphe Trendsetter weynkani waxaan isticmaalaya actually Morphe mid kale aan haystaa Morphe waa kan Morphe Vibes ayaan isticmaalayaa so waa kan waan line garanaya ila daawada and then markaan dhameeyo lip gloss iyo lipstick waan marsanaya hadhow tolo markaan dhameeyo markaan dhameeyo processka ayaan isu sheegi doonaa labada kale waxaa la dhaho so ila daawada insha Allah Okay, waa kaas lipskii waan sameeyay so Woclipcomboga aan maanta marsaday waxa weeyaan Morphe waa Morphe so saan ii sheegay waxa weeyaan Morphe lip liner in Vibe and then Morphe lipstick in Chill mise Boo so waa matte lipstick Boo and then gloss baan marsanay so glosska aan marsanay waxa weyn adan heli karo we hor wala yaala laakiin ma arkay cawdi billah oh my god I can't see it so waa kan waan helay waxa weeyaan lip gloss in Chill so Chill baa la dhahaa saas uu eegyahay waa lip glosskii and then lipstickina waa kan saas uu eegyahay linkada oo dhan hoostan kusoo qorayaa markasta linkada oo dhan hoos kusoo qoran yihiin xagga descriptionka hoosta ayaa wala geliyay linkska aad ka iibsan kartiin ka gadan kartiin makeupka aan maanta isticmaalo oo dhan waa ka heli kartiin linkada hoosta bas waa kaa maanta Makeuplook aan sameeyay I hope inaad ka hesheen I hope inaad barateen I hope inaad follow garaysaan stepka as well oo easy nii noqoto stepyaasha amaanta isticmaalay ku ceeshta marub waa baran doontiin marka ku ceeshta videoyaasha ku celceliya stepyaasha si fiican u arka like saan u conceal garanayo I think main thing waxa weeyaan qofku inuu inuu daalin so gacanta haddii ku daasho then that's when waa garanaysaa makeupkaaga maanta is gonna be really really beautiful okay because ma fiicno haddaad blend gareyn amba haddaa in yarun blend garaysan iska baxdeed because hadhow tolo leerka ayaa dadka tusaya inaad waxna blended ahayn marka waa important wajigaaga inaad blend garaysid makeupka inaad si fiican u blend garaysid oo so important blending waxa weeyaan si fiican productka wajiga aad u blend garaysid I don't know if Somali loo dhaho blend laakiin motionkan markasta aan yiraahdo gacanta idaasho amba waan igu soo noqon because blendinga ayaan hagaajinaya so I blend okay